أشرف وين maanta oo ay taariikhdu tahay 3 bisha 3 2024 inaan halkan uga diro dhammaan haweenweynaha adduunka hambalyo ku saabsan maalinta loo qormeeyay haweenweynaha adduunka gaar ahaan waxaan hambalyo iyo bogaadin aan la soo koobi karin u dirayaa dhammaan haweenweynaha reer Somaliland meel kasta oo adduunka dacaladiisa ka joogaan kuwa dalka gudihiisa jooga had iyo jeer oo heeganka qaranka in iskarab taagaan ayaan u dirayaa hambalyo aan la soo koobi karin waxa kale oo iyagana hambalyo u dirayaa haweenweynaha reer Somaliland ku maqan wadanka dibadiisa waxaan idin leeyahay dhamaantiinba hambalyo maanta waa maalin weyn waa maalin la xusayo waxqabadkii haweenka reer Somaliland iyo iskarabtaaga ay iskarab taageen qarankooda ilaa maalintii wadanka la soo galay ilaa maalinka amaanta oo ay tahay dhowr iyo 30 sanadood waxay haweenka reer Somaliland dhaxda u xidhnaayeen in iskarab taagaan qarankooda iyo bulshadooda waa laf dhabarta runtii aan oran karo wuxuu ku taagan yahay qarankani waa laf dhabarta uu ku taagan yahay qaranku haweenka reer Somaliland meel kasta joogaan waxaan leeyahay hablaha reer Somaliland dhamaantoodba halka ay markii hore ka wadnay hawsha ayanu ka sii laabaynaa qiimaha ay noo leedahay maalinta inkastoo ay haweenka reer Somaliland golayaasha qaranka aad uga muuqanin haddana uma joojiyaan oo ma yiraahdaan waxa aanu ka maqanahay qaranka kama yiraahdaan sababtoo ah cid baan ka bixigin wadankan waxay habeen iyo maalin kaba u gashan yihiin ay u ordayaan sidii wadankoodu u horumarin lahaa waxay u qabtaan adeegyo kala duwan bulshada oo kala gadisan ayay u qabtaan haddaba waxaan leeyahay dhammaan qaranka reer Somaliland ha ka qayb qaataan dhiirigelinta iyo iskarabtaaga haweenka reer Somaliland horumarinta kala duwan ee qaranka u hayaan